بسم الله الرحمن الرحيم 28 نوفمبر 2022 waxaa la soo afjaray weerarkii ay khawaarijtu ku qaaday hotel Rays ee ku yaala degmada Boondheere ee caasimadda gobolka Banaadir. khawaarijtu soo weerartay hotelka oo tiradeedu ahayd ilaa 6 dhagar qabe 5 ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka halka mid ka midna uu isqarxiyay. khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hotelka waxayna ciidamada ammaanku ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 60 qof oo shacab ah mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jiro hawlgalka waxaa ka shahiiday hal askari sidoo kale tan waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale. waxaan uga tacseenaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hotelka oo isugu jira dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka. sidoo kale waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu u boogadhayo inta dhaawac ah. waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.